Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal soo dhawaada. Maanta waxaan qaadan doonaa farqiga u dhexeeyo Bedir. Kusoo dhawaada horta janalkeena Bedir IQ Option Academy. Qofka aan subscribe saarin subscribe saar, walaal soo dhawaaw, share garay, like na dheh asxaabtaada si uu u gaaro programkeena. walaalayaal soo dhawaada. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay videogana waa videogii saddexaad oo asaasiyaadka IQ option ka mid ah. maanta waxaan ku qaadaa dhigeena farqiga u dhexeeyo IQ option iyo forex. farqiga u dhexeeyo muxuu yahay? haddaan bilaawno, IQ optionku waxay leedahay fixed profit and loss. waxay leedahay profit cayiman iyo loss cayiman, faa'iido cayiman iyo waxay leedahay khasaaro cayiman. dhanka kale forex not fixed profit, ma lahan faa'iido cayiman, and loss iyo khasaaro cayimanna ma laha forexku. saas ayay uga duwan tahay IQ option. wrong prediction you done, waxaad sameynaysaa IQ optionka prediction khaldan ayaa sameynaysaa. waa saadaalintaada waxay noqon kartaa inta badan mararka qaar way khaldami kartaa. tradekan silaad u raacaysaa, sila saad u raacdo buy kula aadaa, ama waxaad u raacaysaa tradekan buy say kula tahay waa saadaalintaada. kadib wuxuu kula aadi karaa sel ayuu kula aadi karaa. marka 50-50 maybe, laakiin forexna still you have chance, weli waxaad haystaa chance for wrong decision, inaad qaadato go-aan khaldan. waxaad u haystaa chance adiga maxaa lahay intii oo aad sameyn karto predictionkaada, inta aad sixi karto adigaa saxayo. waad ku dadaali kartaa forex markii la joogo suuqan inuusan jiha khaldan kula aadin, jihadaad u aaday inay sax kula noqoto. IQ optionku waxay leedahay sidoo kale expiration, dhicitaan ay leedahay. timeka aa gashay wuu dhacaa 1 minute, 2 minute, 5 minute, 30 minute, 10 minute, inta adiga aad ku gashay tradekaasi expiration uu leeyahay. timekaas haddii la gaaro wuu dhacaa, ima faa'iido waa ima khasaaro, labadaas midkood ayaa kusoo baxayo. dhanka kale forex no expiration, wax dhicitaan ma lahan, laakiin iyadu waxay leedahay maxaa lahay haddaad faa'iiday take profitka ayuu kugu dhacaa. haddaad khasaartayna wuxuu kugu dhacaa stop loss. hal trade maanta aa gashay wuxuu kula gaari karaa asbuuc, wuxuu kula gaari karaa maalmo badan, wuxuu kula gaari karaa maanta oo dhan. saaksa uu soo gashay laacabadu kula gaari karaa, marka wuu dheeraan karaa, waqti dheer uu qaadan karaa. marka saas forex ayaduna expiration aysan u lahayn. only IQ option only 2 market order, waxaad haystaa keliya 2 market order, 2 dalab oo order ayaa sameyn kartaa keliya markaad joogto IQ option markaad trade sameynaysid. marka forex markaad joogtidna 3 market order, waxaad haysataa 3 market order ayaa haysataa, 3 amar oo kala duwan, 3 order oo kala duwan ayaad isticmaali kartaa. IQ option you can start, waxaad ku bilaabi kartaa $10, waxaad ku bilaabi kartaa IQ option meesha ugu yar waa $10 ayaad brokerka ku shubanaysaa, ayaad ku trade gelinaysaa. halka forexna minimum of ay tahay broker qaar waa $50, broker qaar waxay aqbalayaan inaad ku shubato $50, laakiin brokerka ay Soomaalidu isticmaalaan inta badan FX Primus lacagtiisa ugu yar waa $100. $100 ayaa ugu yar, laakiin broker kale ayaa aqbalayo inaad ku shubo karto $50 way jiraan. marka cashirkan waxaa idin soo diyaariyay Engineer Nuur Abdikaadir Ibrahim oo ku magac dheer Master Daacad. telefoonkan ayaad kala soo xiriiri kartaan macalinka
sawirka macalinkana waa kana shaashadu idinka muuqdaa. maanta waad arki kartaan walaalayaal. soo dhawaada Better IQ Option Academy. videogiiskeena waxaan ugu talagalnay timekooda inuu yaraado. video waqti dheer oo waqti lagaaga dhuminayo ma rabno, waqti yar ayaan video insha allah kasoo dhigaynaa. videogiiskeena inay zaaid u bataan marmaan waan soo koobaynaa, nuxurka ayaan kusoo koobaynaa insha allah. soo dhawaada Better IQ Option Academy. janalka subscribe hala saaro, hala share gareeyo, like hala saaro. wixii comments ah hoos noogu soo reeba walaalayaal insha allah. mahadda idinkeed waxay u sugnaatay allihii noo suurtageliyey mar kale inaan video soo duubno. alxamdulillahi calaa kulli xaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.